السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا عوكا channel فضا هذا channel كوسبتا سبسكرايب سرسياد ولا سعوديد برامجيدا نسوق waxaan waxaanu ka hadli doonaa mawduuc guud oo ku saabsan dalka Turkiga waxaa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Turkiga oo waddan ballaaran oo ku kala yaala labada qaaradood ee Aasiya iyo Yurub. Waddankan intiisa badan waxa ay ku taalaa qaaradda Aasiya. Magaalada madaxda Turkiga waxaa loo yaqaanaa Ankara. Magaalada ugu weyn ee dalkaasina waa Istanbul waa magaalo ka mid ah magaalooyinka caalamka oo dhan ugu weyn, waxaana u dalxiis taga sanadkii malaayiin qof oo isugu yimaada daafaha dunida. luqadda rasmiga ah ee waddankaasi lagaga hadlo waa luqadda afka Turkiga. haddii aynu eegno dhanka qowmiyadaha, qowmiyadda ugu badan ee waddankaasi waa Turkida oo ah ilaa 70%. qowmiyadaha kusoo xiga waxaa ka mid ah qowmiyadda Kurdiga oo ah 18%, halka 12% kasoo hadha ay yihiin qowmiyado kale. madaxweynaha hadda xukuma waddankaasi waxaa la yidhahdaa Recep Tayyip Erdogan. ra'iisul wasaaraha waddankaasina waxaa la yidhahdaa Binali Ali Yildirim. gudoomiyaha baarlamaankana waa Ismaaciil Kahramaan. gudoomiyaha maxkamadda sarena waxaa loo yaqaanaa Hashim Kilik. haddaynu eegno tirada dadka ku nool waddanka Turkiga waxaa lagu qiyaasaa 85 milyan oo qof. turkigu waxa uu xuduud leeyahay wadamada Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iraq, Suuriya, Bulgaariya iyo weliba Greeka. jamhuuriyadda hadda dhisan ee Turkiga waxaa la aasaasay taariikhdu markay ahayd 1922 waxaana aasaasay ninkii la odhan jiray Mustafa Kemal Atatürk. haddii aynu eegno dhanka ciidamada waddanka Turkiga waxa ay ka kooban yihiin ciidamada cirka, dhulka iyo badda. weligana badda waxaa lagu tilmaamaa inay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha. intaas waxaa sii dheer ciidamada booliska iyo jandarmeriga. weliga dagaalka waxa ay ciidamada Turkidu ay hoos yimaadaan wasaaradda difaaca. ciidamada Turkiga waa ciidanka labaad ee ku jira gaashaanbuurta NATO. marka Maraykanka laga yimaado waa ciidanka labaad ee ugu tirada badan. ciidamada Turkiga waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 1 milyan iyo bar. qof kasta oo Turkiya waxaa khasab ku ah inuu soo maro adeegga ciidan muddo gaadhaysa 7 ilaa 18 mar. luqadda Turkigu asal ahaan waxa ay ka soo jeedaa luqadeedka loo yaqaano alif. intii ka horreysay jamhuuriyaddan Turkiga ee hadda aasaasan, luqadda Turkiga waxaa lagu qori jiray farta Carabiga, waxaana luqaddaasi badanaa kelmadeedu ay ka soo jeedaan Farisiga iyo Carabiga. laakiin jamhuuriyadda talada la wareegtay 1922 oo madaxda u ahaa Mustafa Kemal Atatürk ayay ka dambeeyeen afka Turkiga lagu qoro farta Laatiiniga ee maanta laga isticmaalo dalka Turkiga. dadka ku hadla luqadda Turkiga waxaa lagu qiyaasaa ilaa 160 milyan oo qof oo ku kala nool in ka badan ilaa 15. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت زين جوجتونا برنامجكم وصلتنا وطنك. حدي تصنع